haddii aad ka quusatay dhakhtar mid maskaxeed iyo mid jireedba cudurkaadii la bixin kari waayey waxaan kuu sidaa daawo rabbaaniya oo cudurka dhakhtarku xataa ka quusto ka caajisay ka takhallusaysa 3 jeer buu ku celceliyey oo bas ducadan aan in la wadaagay kadibna xanuunkii uu dhakhtarku yiri daawo ma lahan waa la waayay jaan iyo cirib meel u dhigay muddo markuu waday dib buu dhakhtarkii ugu laabtay waxaa lagu sameeyay baaritaan mase ka'annama inuusan waxba qabinba dhakhtarkii baa yaabo wuxuu yiri maxaad isticmaashay maxaad isku daaweyshay daawadana dhulka taalla ee anagu aan ogeyn ee cilmigeenu gaarin waa kee waa daawo rabbaaniya wey assalaamu calaykum walaalaha barakaysan ee badbaado ku soo dhawaada casharkaani muhiimka ah haddii aad ka quusatay dhakhtar mid maskaxeed iyo mid jireedba cudurkaadii la bixin kari waayey waxaan kuu sidaa daawo rabbaaniya oo cudurka dhakhtarku xataa ka quusto ka caajisay ka takhallusaysa mar walbana waxaan ku dadaalaynaa qaadashada asbaabta annagoo daawada iyo dhakhtarka isticmaalayno dhakhtarka u tagayna daawadana qaadanayna ayaynu haddana daawada rabbaaniga iyo ducooyinkii adkaartana adeegsanayna haddii daawadaasi bili-aadanka wax qaban weydo si ay midaan rabbaaniga wax noogu qabato ama taas hadday tabar diya tahay si ay usii xoojiso midaan rabbaaniga cudurradu waa imtixaan minallaahi ka imaanaya qofka iimaanka leh baayaanan la imtixaamaa si uu adduunkan uga tago isagoo wax dembiya lahayn jannada hore uga galo laakiin qofka ibliiska iyo munaafiqa ayaan la imtixaamin adduunkan waayo meeshaana asaga nasiib ku leeyahay bas aakhira nasiib kuma laha imtixaankaas waa loo sabraa sababahana waa la qaataa nin taabici ah oo dhinaca dhakhtarnimada iyo daawooyinkana caan ku ahaa oo dhintay qarnigii 2 ee hijriga hadda waa muddo dheer qarnigii 2 ee hijriga maxaa ka soo wareegay 1200 sano ka soo wareegtay ayaa waxa uu imaaday nin ka sheeganaya caloosha gudaha inuu ka xanuunsan yahay kadibna wuu baaritaankii kadib wuxuu ku yiri waxa ku haya xanuun waliba xanuunka magaciisa uu sheegay waa xanuun caloosha ku dhaca oo inta badan aqlabka majority-gu dadka uu dilo ay u dhintaan ka kicin wuxuu yiri daawo uma hayno midkaan mid aad ka kacaysid ma ahan bal ilaahay iska baryo iskala noolow malakul mawdkaada intuu ku imaanayo ninkaasi waa ka soo tagay dhakhtarkii asagoo niyad jabsan gurigiisa markuu tagay ayaa niyadda u soo noqotay intuu fakiray oo wuxuu yiri haddii dhakhtarkii uu yiri sidaas dhakhtarka rabbigiis sidaa muusa oran ee ilaahay kaasho ducadan aan in la wadaagay ayuu akhriyay 3 jeer oo kaliya bas muddo markuu waday xanuunkii waa qarsoomay dib buu dhakhtarkii ugu laabtay waxaa lagu sameeyay baaritaan mase ka'annama inuusan waxba qabinba oo caafimaaday dhakhtarkii baa yaabo wuxuu yiri maxaad isticmaashay maxaad isku daaweyshay daawadana dhulka taalla ee anagu aan ogeyn ee cilmigeenu gaarin waa kee waa daawo rabbaaniya wey maxay tahay daawadaas marka oo aan rabo naftayda iyo tiinaba inaan kula dardaarno waxaa weeye inaad tidhaahdid allahu rabbii laa ushriku bihi axada allahu rabbii laa ushriku bihi axada اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد صلى الله عليه وسلم إني أتوجه بك إلى ربك وربي أن يرحمني مما بي رحمة يغنيني بها عن رحمة من سواه waxaa laga yaabaa walaalaha qaar in ducadan ama dikrigan caafimaadka wata ay yara xoogaa ku adkaato ama ay isdhahan xoogaa waa dheer tahay ama ma kari karno ama maba naqaanaba yacni kikaada iyo kicinta laakiin waxaan kuugu bishaaraynayaa inaad kari kartid oo aad kari doontid ayaan kuugu bishaaraynayaa haddii aad niyadda taas ka dhaadhicisid waayo haddaad tiraahdo waxaan ma qaban karo xitaa shayga dunida ugu fudud haddaad tiraahdo ma qaban karo ma qaban kartid culays buu kugu noqonaya baynamaa shayga dunida ugu adag haddaad aamintid in aad samayn kartid waa qaban kartaa waa niyada casiimada waay inama alacmaalu binniyaat kaannaba kaba dhigaba hikaada inuu meeshaan ilaahay kuugu furaba iyo barashadeedaba waxaad yacni fahmaysaa in wax badan hore kaaga dayacmeen laakiin hadda
ay ku yani dadaal badan ku dhiman yahay. macnaheedu waa maxay marka? allahu muuqaalka hadba istaaji, la soco, ku cesho, seef garayso, muslimiinta kalena la wadaag. ilahay inuu kuu furaa laga yaabaa maskaxda haddaa sidii sheer garaysay laagtan u taabato muuqaalka insha allahu tacaala u niyeyso sidaas. allahu yani waa wada garanaynaa intaas. allaha macbuudkaa weeye, magaciisii, ismigiisii, keliguu yani goonida lahaa. allah laba jeer baa leedahay. rabbii, rabbigay, laa ushriku bihi axadan, cid lama wadaajinayo xaqiisa. atawxiidkiiyo khaalisa wey. allaahumma allahayow inii anigu atawajahu ilayka binabiyika muxamed sala allahu calayhi wasalam, nabiy raxma. ilaahayow aniga xaggaada waxaan la soo aadayaa dantaydan anoo ku tawasulaya nebi muxamed, nebigii raxmadda iyo naxariista. yaa muxamed, muxamedow calayhi salaatu wasalaam, innii atawajahu bika, adiga sababtaadaan u jihaysanayaa ilaa rabbika, rabbiga, iyo wa rabbii, rabbigay. yacni rabbigay iyo rabbiga oo de hal midade. allahu akbar. maxaa rabtaa waad la cabanaysaa oo alla iyo rasuul aad u sheegaysaa? an yarxamanii mima bi, waxa igu sugan inuu ilaahay iiga naxariisto. xanuunkan la yidhi daawo ma lahan, dhibaatadan yani iga tambadisay, cid aan u kaashada aan waayay, inuu ilaahay iiga naxariisto oo iga dulqaado. raxmatan, naxariis oo igaga naxariisto. yughniinii biha can raxmati man siwaa, cidda ka soo hartay naxariistooda aan oga kaaftoomayo. dhakhtar iyo mid kaloo la taliyaa iyo mid kale aan sheekadooda dhanba aan uga kaaftoomo naxariisa. ilaahayow igaga naxariiso waxaan ihaya xanuunkan, dhibaatadan. sidaasuu akhriyey 3 jeer mudduu waday. khalaas xanuunkii waa shuuqay. allahu akbar. 3 jeer buu ku celceliyey oo bas. kadibna xanuunkii uu dhakhtarku yidhi daawo ma lahan, waa la waayay. jaan iyo cirib meelu dhigay. allahu akbar. hindiyaa tagtay, turki baa tagtay, jarmal baa tagtay, dalal kalaa tagtay, dhakhtarka adduunka ugu actifsanaa baa tagtay. daawooyin bay kuu soo qoreen, waxba waa kuu tari waayeen. xanuunay kugu sheegeen, waxay dhaheen daawo ma lahan, kaalmaatigan mooyaane waa iskala noolaanaysaa baa lagu yidhi. waad iska rumaysatay oo sariirtaa dul fuushay, joodariga ku dul dhacday, waa iska murugaysan tahay. no, qof iimaankiisu xoog leeyahay, qof allah awoodiisa si dhaba u yaqaan, sidaa ma sameeyo. mar haddii dhakhaatiirtu sidaa dhaheen, ilaahay sidaa ma dhihin. ilaahay xaggiisa si yaqiina ugu jeesocdo, ilaahay u toobad keenaya. ilaahay waa kaaga naxariisanaya dhibkaa ku haya, kugumana fiirsanaya rabbi waxaad ku sugan tahay. allahu rabbii laa ushriku bihi axada. allaahumma innii atawajjahu ilayka binabiyika muxamed sala allahu calayhi wasalam, nabiyi raxma. yaa muxamedu innii atawajjahu bika ilaa rabbika wa rabbii, an yarxamanii mima bi raxmatan yughniinii biha can raxmati man siwaah. waa duca aad iyo aad u qaaliya oo aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad aan u jeclaystay markaan qisadiisa arkay. culimadana in badanoo ka mida ay isticmaaleen oo ay banneeyeen. ku daawee naftaada, qalbigaada, noloshaada. muslimiinta kalena ku baraaruji oo u sheeg, lacala sadaqa jaariya inay kuu noqotaa laga yaabaaye. horey u socda. ilaahay ha shaafiyo inta xanuunsan, inta murugaysanna murugada allah ka dulqaado. jazaakum allahu khayra.